sida u shaqeeyo AC-ga ama alternate current-ga iyo DC-ga maadaama casharadii hore aan ka soo hadalnay ay ka saabsanaayeen inductor-ka iyo inductance-ka qaybtan waxaan kaga hadlaynaa AC-ga maadaama inductorsku ay loo isticmaalo waxyaalo badan oo ay ka mid yihiin AC-ga direct current sidee baan ku helnaa waxyaalaha direct current-ga noo soo saara waxaa ka mid ah bateriga aan u naqaano dry cell-ka ay ka mid yihiin triple A-ga iyo double A-ga bateriyada kuwaas oo noo soo saaro direct current waxaa kaloo soo saaro direct current noo soo saaro bateriga baabuurta oo kale oo asagana acid iyo ku shaqeeyo asagana wuxuu soo saaraa DC ama direct current solar panelka naftiisa waxa uu dhaliyaa qoraxda ayuu wuxuu ka dhaliyaa wax loo yaqaano direct current ayuu soo saaraa alternate current oo ah korontada isbedesho waxaa noo soo saara oo aan isticmaali karnaa waxaa ka mid ah generatorka ay ka mid yihiin caterpillarka misalan warshadaha korontada soo saara majority of them waxay isticmaalaan AC generators oo ku shaqeeya diesel ayay isticmaalaan haddii aanan solar panel inta loo bedelo DC to AC loo bedelin majority of them waxay ka yimaadaan generatorkaas ayay ka midayeen generatorkaas markii korontada ay kasoo tagto waxaa loo isticmaalaa poles kuwaas oo korontada soo qaado oo ayagana sometimes waxay leeyihiin transformers iyo capacitors oo keediyo tamartaa ka timaado generatorka marka korontada waxay timaadaa gurigeena oo aan u isticmaalno waxaa loo isticmaalaa direct current-ga direct current waxyaalaha isticmaalna waxaa ka mid ah flashlight-ka oo gudihiisa ay ku jirto battery telefonka aan isticmaalno wuxuu asagana uu ku shaqeeyaa DC ayuu ku shaqeeyaa raadiyaha sidaas oo kale waxa uu ku shaqeeyaa DC iyo waxyaalo badan ayaa jira intaan waa tusaale keliya alternate current-ga ama AC-ga waxyaalahan isticmaalna waxaa ka mid ah guryaheena oo kale lightska guryaha furniture-ka aan ku kaydsano cuntada sidoo kale isagana wuxuu ku shaqeeyaa AC sidoo kale waxyaalaha aan ku karsano cuntada waxa ay ku shaqeeyaan ayagoo kalena waxay ku shaqeeyaan AC ayay ku shaqeeyaan marka su-aasha waxay tahay DC sidee bay actually ay ku timi ama korontada sidee bay markeeda hore ay ku timi ninka loo yaqaano Alexander Volta oo aad ogtiin volt meesha ay ka timi isaga in loogu naynaasay oo ahaa nin Talyaani ah 1800kii ayuu ninkaas wuxuu alifay waxa loo yaqaano Voltaic pile oo ah bateriga ugu horeeya baterigaas oo sameeyay tusaarihiisa ujeedaan waxaa loo baxshay Voltaic pile 1801dii ayuu ninka tusaalahaas waxa uu tusay ninkii wadankaas haystay Faransiiska ayuu u tagay oo loo yaqaanay Napoleon ayuu markaa wuxuu tusay tusaalihii baterigiisii marka Napoleon wuu la dhacay arrintaas tusaalahaas uu bateriga uu tusay marka Napoleon waxa uu siiyey bilad sharaf ayuu siiyey maadaama baterigaas uu ahaa wax markaa ugu cusub oo qof uu alifo dad badan ayaa xubin weyn ka qaatay sida aan ku heli lahayn waxa loo yaqaano direct current ama korontada aan isbedelin ninka ugu tagad fiicnaa oo si fiican shaqo xoog leh ka qabtay wuxuu ahaa ninka la yiraahdo Thomas Alva Edison oo loo yaqaano Edison wuxuu ahaa nin inverter ah oo engineer ah ayuu ahaa wuxuuna noolaa sanooyinkii 1847 ilaa 1931 ninka ayaa waxaa la yiraahdaa wuxuu ahaa aabihii DC-ga ayaa la yiraahdaa si aan u fahamno direct current waxaan sameeynaa circuit on simulation aan ku sameynaa si aan u aragno electronska dhinacay u socdaan halka waxaan ku haysanaa battery 5 volt batteriga positivekiisa waxaa ku xiran switchka lugtiisa kale waxaa ku xiran 1 ohm resistor ah resistorka lugtiisa kalena waxaa ku xiran ground ama wuxuu ku xirmayaa batteriga negativekiisa si aan u cabirno voltageka resistorka uu marayso waxaan isticmaalaynaa voltmeter sida la socotaana voltmeter wuxuu cabiraa voltage markaan simulationka aan daarno sida u jeedaan there's no current flowing wax koronta oo ka tagaysa batteriga ma jirto maadaama switchka uu dansan yahay marka waxa uu cabirayaa 0 volts markaan switchka daaro waxa ogaanaynaa batteriga 5 voltska uu cabirayo in ay marayso resistorka korkiisa taasna waxaa noo cabiray voltmeter pictureka ujeedaana wuxuu noo sheegayaa in 5 volts aan cabirnay sida ujeedaan meesha wuxuu tusayaa 5 volts batteriga waxaa ka tagaya dhibcahana ujeedaan waxa ay noo sheegayaan electronska dhinacay u socdaan ama electrons flowing from the positive to negative
sidaa u jeedaanna hal direction ama hal dhinac keliya ayay u socdaan oo markay qulqulayaan hal dhinac ayay u socdaan waxa ayna soo marayaan resistorka korkiisa resistorka markay korkiisa maraan sidaa u jeedaan buluuga waxa uu noo sheegayaa in meeshaas ee korontada uu dhimaayo maadaama resistorka shaqadiisu ay tahay inuu korontada qulqulkeeda ka hortago marka taana waxaan isticmaalaynaa wax loo yaqaano conventional current flow oo ah korontada waxay ka tagtaa ama electronska waxay ka tagaan positive waxa ayna kusoo laabtaan negative marka dc waxa loo yiri waa direct current macnaheedu wuxuu yahay hal meel keliya ayay u qulqushaa ama hal dhinac keliya ayay u qulqushaa halkan waxaan ku haysanaa voltmeter noo cabirayo voltageka oo cabirayana waa dc ama direct current sababtu waxay tahay waxaan ku haysanaa halkaa battery sidii hore aan usoo sheegnay batteriga wuxuu dhaliyaa koronto ama koronto loo yaqaano dc direct current voltmeterka pluskiisa waxaan ku xiraynaa pluska oo batterigan quwadiisa waxay tahay 1.5 volts hal iyo bar volt ayuu cabirayaa waxaan batteriga lugtiisa kale oo negativeka waxaan ku xiray switchka lugtiisa kalena waxaan ku xiray voltmeter marka waxaa dhacaysa korontada ka tagto batteriga waxay maraysaa voltmeterka wuxuu cabirayaa voltageka korontada kasoo baxdana waxay kusoo laabanaysaa switchka markaan circuitka aan xiro waxaan rajaynayaa maadaama korontada hal dhinac keliya ay u qulqulayso inay positive u qulqusho sidii aan idinku tusay tusaalihii simulationka marka waxay ka tegaysaa 0 oo waxay tegaysaa 1.5 maadaama halkan 3 aan ku xiray wuxuu cabirayaa 3 volts marka wuxuu ka tegayaa 0 1 1.5 meelahaas ayay tegaysaa cirbadda markaan xiro switchka sidaa ujeedaan cirbadda voltmeterka ama voltage meterka wuxuu ka tegay 0 wuxuuna tegay 1.5 marka korontadii ama voltageka hal dhinac keliya ayay u qulqushay taa ayaa waxaa loo yaqaanaa dc korontada isbabadasho waxaa loo yaqaanaa alternating current korontadaas oo marba dhinac aado ama isrogrogto korontadaas waxaa shaqo xoog leh ka qabtay soo saarideeda ninkaa loo yaqaano Nikola Tesla oo hadda kor casharadeen hore aan ku soo sharaxnay ninkaa oo u dhashay waddanka Austria markii dambena jinsiyadda Mareykanka qaatay wuxuu ahaa nin injineer ah oo shaqo xoog leh ka qabtay sidii alternate current ee caan ku noqon lahayd wuxuu noolaa sanooyinkii 1996 ilaa 1943 marka ninka ayaa waxaa la yidhaahdaa aabihii alternating current sheekooyin badan ayaa jiro asaga iyo ninkii Thomas Edison ahaa marar badan ayay dagaalameen oo marba waxaaba jiri jirta Nikola Tesla inuu u shaqayn jiray Edison markii dambena uu ku raaci waayey in dc ay tahay wax loo isticmaali karo guryaha iyo warshadaha marka meesha ayaa dagaal ayaa ka dhexmay marka Nikola Tesla ayaa shaqadiisii alternating meesha ka watay oona hirgeliyey wax loo yaqaano alternating current marka alternate current maxay tahay waxa weeye flow of electric charge that changes direction back and forth waxa weeye qulqulka korontada oo marba isbedelo marba direction marba meel aada marna wuxuu aadaa dhinaca hore marna dhinaca gadaal hore iyo gadaal ayuu u aadaa marka ka ayaa waxaa la yiraahdaa alternating current tusaale ayaa idinku tusaya simulation ah circuitka aa ujeedaan waxaan ku simulate garan doonaa sida u shaqeeyo alternating current korontada isbedesho halkan waxaan ku haysanaa generator 50 hertz noo soo saarayo circuitkii hore kan wuxuu kaga duwan yahay batterigii ayaan ka saarnay oo waxaan ku bedelnay generatorka wuxuu noo soo saarayaa koronto dhan 220 volt oo 50 hertz ah 50 hertzna waa frequency-ga ee isku bedelayso waxaa ku xiran switch waxaa ku xiran resistorka korkiisa waxaan rabnaa inaan ka cabirno voltage ayaan rabnaa inaan ka cabirno simulationka markii aan daarno sida ujeedaan generatorkii waxa uu noo soo saaray sine wavekaas oo marna aadaya positive marna aadaya negative waxaa fiirisaa markaan korontada dabka aan daaro waxaa fiirisaa dhibcaha yararka ah oo cagaarka ah oo noo sheegayo electronska dhinacay u socdaan ama electron flowga korontadii qulqulkeedii markaan switchka xiro sidaa ujeedaan dhibcihii waxay aadayeen marna horay marna gadaal taana waxa ay ku xiran tahay sine waveka ama frequency-ga uu soo saaro generatorka sine waveka markii uu tago plus
200 volts uu tago korontada positive ayay aadaysaa oo chargeski dhinaca positiveka ayay u qulqulayaan markii korontada hoos ay usoo dhacdo ay noqoto 220 ay tagto sine wavekana waxaa dhacayso electronski dhinaca kale ayay usoo laabanayaan oo back ayay usoo laabanayaan markaad alternate current wax kale ma aha electronska back and forth ayay aadaan marna horey aadayaan marna gadaal ayay aadaan taana waxay ku xiran tahay sine wavekaas meesha hadba uu aado hadduu kor aado iyo hadduu hoos aado taa ayaa waxaa loo yaqaanaa alternate current waxaan sharxi doonaa sine waveka waxa uu yahay pictureka aa ujeedaan waxa uuna tusayaa sine waveki uu soo saaray generatorkii aan tusaalaha idinku tusay sidaa ujeedaan laba line ayaa jiro lineka taagan wuxuu cabirayaa voltage dhexda wuxuu ka yahay 0 wixii kor ah waa positive 200 ayuu hadda noo cabirayaa iyo wixii ka badan 0ga wixii ka hooseeyana wuxuu cabirayaa negative voltage oo ilaa minus 200 wax ka badan lineka dheer oo horizontalka oo jiifana wuxuu cabirayaa waqtiga ee ku qaadatay sine wavekaas sine wavekaas marka uu ka tago 0 uu plus tago wuxuu ku soo laabtaa 0ga haddana wuxuu aadaa negative haddana wuxuu ku soo laabtaa 0 taas waxaa loo yaqaanaa period ayaa loo yaqaanaa yacni markuu 0 ka tago uu negative tago uu 0 ku soo laabto waxaa la yidhaahdaa period periodkaasna waxay ku xiran tahay generatorka sine waveka frequencyga uu soo saaray voltageka halfka 0ga ilaa positiveka tagaya in this case 200 uu yahay waxaa loo yaqaanaa v amplitude waa amplitudeka quwadda ee lahayd positiveka sine waveka waxaa kaloo loo yaqaanaa v peak peakna waa meesha ugu koreysay ee tagto oo positiveka ah dhinaca 0ga ilaa negativeka ay ka tagto waxaa loo yaqaanaa amplitudeka or vb minuski meesha minuska ay ugu sareysay ay tagto marka sine waveka wuxuu leeyahay positive iyo negative amplitude ama quwad ayuu leeyahay marna positive uu ku tago marna negative uu ku tago waxaa kaloo loo isticmaalaa wax loo yaqaano pi markuu 0 uu ka tago qaybta kore oo positiveka ay ku soo laabatay 0 waxaa loo yaqaanaa pi marka uu 0 uu ka tago pi uu ka tago uu ku soo laabto 0ga kale qaybta negativeka ah waxaa loo yaqaanaa 2 pi ayaa la isticmaalaa pi waxay la mid tahay 180 degree 180 degree waa markuu 0 ka tago qaybta kore oo positiveka uu ku soo laabto 0 ayaa waxaa loo yaqaanaa 180 degree marka uu 2 pi uu tago uu qaybta kore iyo qaybta hoose negativeka ay 0 ku soo laabtaan ay complete ay noqoto cyclekii frequencyga ay complete noqoto wuxuu maray 360 degrees ayuu maray frequencyga uu soo saaro generatorka ama sine waveka waxaa la isticmaalaa 1 divided by period waxaad cabiraysaa markuu 0 ka tago uu complete uu negative tago uu ku soo laabto 0 ayaa period la yidhaahdo waa cabiraysaa periodka wuxuu la mid yahay 1 divided by frequency marka periodka asagana waxaa lagu helaa 1 divided by frequency marka in this case frequencyga waana la siiyey waxaana la siiyey 50 hertz waxaana la warsaday periodkii ama timekii ay ku qaadatay inay ka tagto 0 ay ku soo laabato 0 oo complete cycle ay samayso marka taa waxaan leenahay 1 divided by 50 wuxuuna siiyey 20 milliseconds marka waxay ku qaadatay 0 ilaa uu ka tago oo positive tago uu negative tago uu ku soo laabtay 0 waxay ku qaadatay 20 millisecond ayay ku qaadatay pictureka ujeedaan waa sine wavekii sine waveki sida hore usoo sheegnay wuxuu leeyahay line taagan iyo line jiifa lineka taagan waxa uu lagu cabiraa amplitudeka ama quwadda ee leedahay sine waveka quwadda sine waveka ee leedahay sida hore usoo sheegnay waxay tagtaa positive iyo negative ay tagtaa markay ka tagto 0ga oo lineka 0ga ay tagto maximumka ugu sareysa ay tagto halfka oo positiveka waxaa loo yaqaanaa v plus sida hore usoo sharxay markii la isku daro meesha positiveka ay tagto maximumka iyo meesha negativeka ay maximum ka tagto waxaa la isku yiraahdaa
peak to peak ama voltage peak to peak oo yacni kor iyo hoos labada markii la isku daro. Peakna waxay noqonaysaa meesha ugu sarreyso ee tagto quwadeeda. waxaa kaloo jirta wax la yidhaahdo root mean square oo asagana averageka ah wax yar ka yar peakda ka yar. tusaale ahaan guryaheena oo kale markii ay korontada ay tahay 220 volt ay tahay muqdisho aan kasoo qaadno, taa waxaan dhihi karnaa waa RMS voltage. markaa rabta inaa hesho VRMS-ka waxaa lagu helaa 1 divided by square root of 2. square root of 2na wuxuu la mid yahay 1.414. marka 1 markaa u qaybiso waxaa helaysaa 0.707 times the voltage peak, peakga u sareyso. peakga haddaa rabta inaa hesho oo lagu siiyo RMS-ka, misale waxaa lagu yiri korontada guriga waxay la mid tahay 220 volt AC ah, raadiyaa lagu yiri peakga. marka waxaa sameynaysaa square root of 2 oo ahaa 1.4 ayaa waxaa ku dhufanaysaa VRMS-ka. haddii lagu warsado peak to peakga lagu warsado ay tagtay sine wave-ka ama quwadda ay yeelatay korontadaas, haddii lagu warsado waxaa ku dhufanaysaa 2.82 ayaa waxaa ku dhufanaysaa VRMS. tusaalo su-aal ayaana la warsaday, waxaana la yiri the RMS value of Mogadishu main supply is 220. muqdisho korontada guriga timaado waxay la mid tahay 220. waxaana la warsaday peak value-ga meesha ugu sarreyso ay tegi karto iyo peak to peakga labada minuska iyo pluska meesha ay tegi karto. haddiina la siiyo AC korontada muqdisho uu yahay 220, maxay tahay meesha ugu sarreyso ay tegi karto waa V peak. waxaa kaloo la warsaday peak to peakgeeda. formulayaasha ayaan isticmaalaynaa. peakga waxaa lagu helaa 1.41 times VRMS. VRMS-na waana la siiyey, waxaa la yiri muqdisho waa 220. markaa labadaa isku dhufato waxaa helaysaa 311 volt oo AC ah. marka taa waxay kuu sheegaysaa calaamadan greenka ah peakga ay tagtay. wuxuu noo sheegaa 0 inay ka tagto ay tagtay 311 volt ah. RMS-kana 0 ka tagtay waxay tagtay 220 waa tiina la siiyey. peak to peakga waxaan ku helaynaa 2.8 oo lagu dhuftay 220. peak to peak marka waxaan raadinaynaa midka cad oo meesha ugu koreyso pluska iyo minuska ay tagtay, taana waxay noqotay 622 volt AC. tusaalahan just waxaan rabaa inaa idin tuso AC-ga sida uu egyahay markaad ku cabirto voltometer. marka waxaan isticmaalay signal generator oo digital ah. waxa uu soo saarayaa 2 volts, frequency yarna wuu soo saaraya oo ah 11.5 hertz ah. frequency-ga fiilada ka imaanayso signal generator-ka iyo waxaan isku xiray scope-ka ayaan isku xiray, kulligood waxay la qaybsanayaan mitirka ayay la qaybsanayaan pluska iyo minuska. marka haddaa fiiriso sine wave-ka aad fiiriso waxaa arkaysaa sine wave-ka markii kor uu aado positive ayuu noqonayaa, markuu hoos aadana wuxuu noqonayaa negative. marka taa waxay kuu sheegaysaa korontada ama charge-ka marna inuu hore aadayo marna inuu gadaal aadayo ayay ku tusaysaa. taana waa sida aan ku sharaxnay AC current, alternate current. alternate macnaheedu waxay tahay marna waxay aadaysaa positive marna negative, marna hore u socotaa charge-ki marna gadaal ayay u dhaqaaqaysaa.